السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل توركشن أصحابي ملكستو أشوكتان كسر هذا دعوين كعجيب كسعودات دجال كعلص السوق هذا تلابيب وجورنا ويدكم داكم لجنجي دبكة يهولع أيا إسقف صدي ما ربضنا وكمده تلابيب عاصمة إسرائيل. هذا بقى أريد تصو سيدا وحود عين المبادرة. إذا ما نتابعه في الصور الآن مكان لسقوط صاروخ إيراني في تل أبيب، والآن الحديث عن إصابات بين 6 و7 إصابات جراء هذا الصاروخ. وعسو كلا أينو برنامج كوفا قد الدونا آية الله هي بدن تيمسونو لهي إيران. هذا بقى إيران محي كتري محي كيرهدين مدحدا ترامب iyo Netanyahu iyo ragiisa maxay ka yiraahdeen ayatullaahiga geeridiisa. hadaba tafaasiil ku saabsan sheekada waan idin hayaa. xaruntii sirdoonka Mossad taliskii ciidamada ee saldhigga cirka ee Ramad iyo waliba goobo kale oo istiraatiiji ah oo ay ku jirto wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil oo dukum daakum laga dhigay caawa. duqeymo kale oo ka dhacay Qatar iyo meelo kale oo iyaguna duqeymaha saldhigyada ciidamada Mareykanka la weeraray. haddaba xaaladdu halkay maraysaa? dagaalkii waa sii cuslaaday, wax la isu reebanaya ma jiraan. hadda oo aan idinla hadlayo telefishinka Al-Jazeera wuxuu baahinayaa holaca iyo dabka iyo qaylada iyo ambalaaska iyo weliba siiriga digniinta oo magaalada Tel Aviv isqabsaday. Tel Aviv kaliya ma ahane magaalooyin kale ilaa 75 magaalo oo Israa'iil ah ayaa siirigu isaystaa gantaaladu ay sida roobka ugu daadanayaan. Iiraan oo sheegtay inay wacad ku martay inay Israa'iil ku soo afjari doonto maalmo yar gudahood. haddaba maxaa jira? sheekadu halkee maraysaa? haddaba aan idin dulmaro wararkii ugu waaweynaa ee ay qoreen warbaahinta gaar ahaan telefishinka Al-Jazeera, wararkii ugu waaweynaa ee uu soo ururiyay. haddaba waxa uu ku bilaabayaa diiwaan amiiri ama xafiiska amiirka Qatar ayaa xaqiijiyay in telefoonka ay ku wada hadleen Trump iyo amiirka Qatar, waxayna ka wada hadleen xaaladda iyo sida ay waxiya tahay ayaa laga hadlay. dhanka kale hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa cadaysay koordhow in 6 qof ugu yaraan inta la og yahay hadda ay ku dhaawacmeen sawaariiq ama gantaalo ka yimid Iiraan oo ku habsaday magaalada Tel Aviv. urada iyo dabka ayaa isqabsaday ayaa la leeyahay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatarna waxay cambaareenaysaa weerarka Iiraan ay ku soo qaaday dalkeeda mar kale caawa dhowr gantaal oo lagu soo weeraray Qatar. haddaba dhanka kale waxaa yana war soo saaray Trump, waxa uu sheegay dhammaan hogaamiyaasha sare ee Iiraan waxa uu yiri waa dilnay. haddaba waxaana uu waraysi siiyey telefishinka la yiraahdo BBC News NBC News ayuu siiyey. haddaba taliyaha ciidamada Iiraan ayaa isaguna hadlay oo goordhaweyd war soo saaray. waxa uu sheegay jawaabta aan bixinayno gardarradan ku soo qaaday waxa ay saameyn doontaa meelo kala duwan oo ay ku jiraan dhulka Israa'iil ay xoogga ku haysato iyo saldhigyada Mareykanka ee gobolka ku yaala kulligood. taliyaha xarunta la yiraahdo Khatimul Anbiyaa ciidamada Iiraan ay leeyihiin ayaa waxa uu sheegay in dagaalku uu hadda bilow yahay. wargeyska la yiraahdo Israa'iil Huyum ee Israa'iil ka soo baxa ayaa isaguna wuxuu qoray in gantaalo ay ku dhaceen magaalada Tel Aviv. sidoo kale waxaa sheegay telefishinka 12 Israa'iil waxa uu yiri holaca iyo gantaalaha iyo hugunka ayaa laga maqlayaa magaalada Tel Aviv, iyadoo uu sheegay in ay gabaabsi yihiin gantaalihii difaaca sida muuqata oo Mareykanka iyo Israa'iil oo ay qaati billaahi ka joogaan inay ka hortagaan gantaalaha Iiraan. Trump waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay ayatullaahiga inuu dhintay sida uu u sheegay telefishinada Mareykanka. dhanka kale digniinaha dhawaqa bixiya ayaa laga maqlayaa meelo kala duwan oo ay Tel Aviv ku jirto xilligan. wararka kale ee cusub ee soo baxaya waxaa ka mid ah afhayeenka ciidanka Israa'iil ayaa isaguna war soo saaray. waxa uu sheegay in ay dileen la taliyihii Khamenei ama ayatullaahi Khamenei ninka la yiraahdo Ali Shamakhani, kaasoo ahaa la taliyihiisa dhinaca ammaanka. waxaa sidoo kale iyaguna hadlay mas-uul Iiraani ah
waxa uu sheegay washington inay lugaha la gashay dagaal weyn oo ay ku baabi'i doonto trump waxa uu sheegay inay hayaan fikrad cusub oo ku saabsan hoggaan cusub in ay u sameeyaan iiraan haddii dagaalka ay ku guulaystaan dhanka kale kuwait ayaa caawa sheegtay in la bartilmaameedsaday saldhigga la yidhaahdo maxamed al axmed ee ciidamada badda ay leeyihiin halkaasoo la sheegay diyaarado daroon ah inay ku habsadeen oo iiraan ka yimid dhanka kale mas-uul iiraani ah ayaa isaguna sheegay jawaabta iiraan ay bixinayso inay isugu jirto sawaariikh iyo diyaarado daroon ah waxaana uu sheegay in gantaalaha culus ee khaybar iyo faatax ay hawsha bilaabi doonaan oo qaarkoodba hadda la adeegsaday dhanka kale mas-uul maraykana ayaa sheegay in markaa xaaladdu ay kacsan tahay ayna isticmaalayaan gantaalahooda la yidhaahdo tomahawk si ay u baabi'iyaan gantaalaha difaaca iiraan oo iyagu markaa la dhaafi la'yahay oo diyaaradaha maraykanka iyo kuwa israa'iil ay kala kulmayaan caqabado haddaba dhanka kale waxaa la sheegayaa mas-uul iiraani ah inuu yidhi xaaladdu way degan tahay aayatullaahiga iyo madaxweynaha iiraan labadaba way caafimaad qabaan waxayna ku jiraan meel ammaan ah sida uu yidhi wasiirka difaaca ee israa'iil ayaa isaguna waxa uu sheegay inaanay marnaba aqbali doonin in la dhibaateeyo iiraan oo ay jawaab ka bixin doonaan gantaalaha iiraan in la dhibaateeyo israa'iil gantaalaha israa'iilna markaa ay difaaci doonaan israa'iil dhanka kale safiirka israa'iil u fadhiya washington ayaa sheegay in mas-uuliyiin maraykana ay gaarsiiyeen in la dilay aayatullaahiga iiraan cali khamaney dhanka kale waxaa la sheegayaa golaha wasiirada ama wasiirada arrimaha dibadda ee yurub inay berito shir degdega isugu iman doonaan oo ay kaga arrinsan doonaan xiisadda taagan dhanka kale waxaa la sheegayaa xafiiska aayatullaahi khomani in markaa uu ka hadlay xaaladda waxaana la sheegay in meesha xafiiskiisa ahayd khomani la duqeeyey oo gantaalaha maraykanka ay ku dhaceen haddaba dhanka kale waxaa la sheegayaa inuu hadlay ninka la yidhaahdo cali larijani oo ka mid ah madaxda sare ahna xogayaha golaha amniga qaranka iiraan waxa uu sheegay sahnuuniyadda iyo maraykankuba inay yihiin dembiilayaal ayna ka shallayn doonaan weerarka ay iiraan ku soo qaadeen sidoo kale telefishinka aljaziira wararka degdega ay soo ururiyey waxaa ka mid ah trump waxa uu la hadlay jariiradda la yidhaahdo axios ee waddankaasi maraykanka waxaana uu sheegay inay ujeeddadoodu tahay in markaa kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii in iiraan ay markaa ka takhallusaan maamulkeeda haddaba ciidanka israa'iil dhanka kale waxay waray soo saareen goordhow sheegeen inay ka hortageen qaar ka mid a diyaaradaha daroonka ee iiraan oo meel walba ka soo gelaya israa'iil madaxweynaha faransiiska macron ayaa isaguna hadlay wuxuu sheegay inaanu faransiisku ka qayb ahayn weerarka lagu qaaday iiraan haddaba dhanka kale waxaa la sheegayaa in markaa jariiradda la yidhaahdo haaretis ee israa'iil ka soo baxda caawa ay sheegtay 100 gantaal in markaa iyo diyaarado daroon ah oo isla socda iiraan ay ku soo weerartay caawa israa'iil waxaana uu yidhi waxay geysteen khasaaro xoog leh haddaba dhanka kale waxaa la sheegayaa mas-uul amniga qaabilsan ayaa wuxuu sheegay 4 ka mid ah hogaamiyeyaasha iyo kuwa sirdoonka iiraan in la dilay mas-uul amniga reer galbeedka ayaa lagu soo koobay warka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa iyaduna ugu baaqday muwaadiniinteeda in ay markaa iska diiwaangeliyaan sida ugu dhaqsiya badan safaaradaha iyo qunsuliyadaha ku yaala gobolka bariga dhexe dowladda norway iyo dowlado kale waxay ugu baaqeen muwaadiniinteeda inaanay gobolka u safrin trump waxa uu dhanka kale sheegay isagoo la hadlay madaxda qatar iyo sacuudiga iyo imaaraadka in markaa ay maraykanku difaaci doonaan haddana dhanka kale waxaa isaguna wada hadlay trump iyo madaxa gaashaanbuurta neto haddaba dhanka kale waxaa la sheegayaa wararka cusub ee soo kordhay ka mid a netanyahu inuu isaguna rumaysan yahay adilooyinka uu hayo
in aayatullaahiga iiraan aanu noolayn sida uu yidhi netanyahu. dhanka kale waxaa la sheegayaa hay-adda wararka u faafisa israa'iil inay sheegtay wadahadalladii iiraan inay iska ahaayeen kuwo markaa madadaalis ah oo laysu diyaarinayay dagaalka. haddaba dhanka kale warka kale ee weyn ee soo kordhay caawa wuxuu yahay in si weyn loo adkeeyey ammaanka aqalka cad ee dalka maraykanka iyo meesha madaxweynaha maraykanka uu joogo ee la yidhaahdo Mar-a-Lago, halkaasoo la sheegay in markaa ammaanka dowladda maraykanka ay aad u adkaysay cabsi aan la garanayn oo maraykanka ay ka qabaan, sida ay qortay jariirada la yidhaahdo Wall Street Journal ee maraykanka ka soo baxda. haddaba dhanka kale dowladda Kuwait ayaa u yeertay caawa safiirka Iiraan iyadoo wax ka weydiinaysa weerarada lagu soo qaaday. haddaba kooxaha islaamiyiinta Ciraaq ee gacansaarka la leh Iiraan ayaa iyaguna sheegay dagaalka inay hadda soo galeen isla markaana ay gantaalo ku weerareen saldhigyada maraykanka ee Ciraaq uu ku leeyahay. wararkaasi waxaa sidoo kale ka mid ah hogaamiyaha xuutiyiinta Cabdimalik al-Xuuti oo isaguna caawa hadlay ayaa sheegay in iyaguna ay goordhow bilaabi doonaan weerarada ka dhanka ah xulafada isu bahaysatay inay markaa ka takhalusaan oo ay ridaan nidaamka Iiraan. mas-uul Iiraani ah ayaa isna goordhow hadlay sida Al-Jazeera ay sheegtay. wuxuu sheegay aayatullaahiga iyo madaxweyne Pezeshkian labaduba inay wanaagsan yihiin oo caafimaadkooduna uu fiican yahay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan oo la hadlayay shabakadda ABC ee dalka maraykanka ayaa sheegay wararka la isla dhex marayo aayatullaahiga inuu dhintay inay tahay been oo aan waxba ka jirin. wuxuuna sheegay inay caafimaad qabaan aayatullaahiga iyo madaxweynaha oo xaalkooda uu fiican yahay. haddaba dhanka kale waxaa la sheegayaa Trump inuu wada hadallo ay yeesheen isaga iyo Netanyahu si ay uga arrinsadaan xaaladdu halka ay hadda marayso iyo sida xaalku uu u kacsan yahay. taliyaha taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa isaguna war soo saaray. waxa ay leeyihiin ciidanka maraykanku waxay iska caabiyeen oo ay ka hortageen weeraro ka yimid dhanka Iiraan oo lagu soo qaaday. hogaamiyaha xuutiyiinta ayaa mar kale hadlay, warbixin laga qoray wuxuu leeyahay yemen waa diyaar waxaana la arki doonaa jawaabta ay bixiso goordhow. wasiirka arrimaha dibadda ee qatarna waxa uu telefoonka kula hadlay dhigiisa midowga Yurub iyagoo markaa ka wada hadlaya xaaladdu halka ay hadda taagan tahay. dhanka kale waxaa la sheegayaa ra'iisul wasaaraha Britain iyo amiirka qatar inay iyaguna wada hadleen. Britain waxay sheegtay inaanay ku jirin kuwa weeraray Iiraan, balse Britain waxay tiri waxaan difaaci doonaa saaxiibadeena gobolka oo ay qatar uga horeyso oo aanu ka difaaci doono weerarada Iiraan. wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun ayaa isaguna sheegay in Urdun aanay marnaba si marmarsiya u ogolaan doonin in dalkeeda lagu xadgudbo. dhanka kale waxaa la sheegayaa caruurtii maanta lagu duqeeyay Iiraan oo markaa iskuul ay gabdhaha dhiganayeen ah tirada dhimashada caruur iskuulleydaasi ay gaartay 86 cunug oo markaa iskuullada Iiraan ee la duqeeyay ah. dhanka kale waxaa la sheegayaa madaxda Israa'iil oo ay ku jiraan wasiirada Israa'iil in loo kaxeeyay goobo dhulka hoostiisa ah si ay uga gabadaan weerarkan Iiraan ay ku hayso Israa'iil. haddaba dhanka kale mas-uuliyiin Maraykan ayaa waxay sheegeen inay adeegsadeen markii ugu horreysay isticmaaleen gantaalaha nooca loo yaqaano Tomahawk, kuwaasoo ay sheegeen inay ku difaacayaan oo ay ku garaacayaan goobaha ay yaalaan gantaalaha hawada difaaca ee Iiraan oo ay sheegeen diyaaraduhu inay khaati billaahi ka joogaan. waayahay wararkaas waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee dhacayay intaynu kala maqnayn ayaan idiin soo ururiyay. waxyaabaha ugu weyn marka ilaa 2 iyo 3 markaan falanqayno waxaa ka mid ah kow dabkan ka kacaya oo aad aragteen Tel Aviv oo la leeyahay siday taa loo garaacay. xaruntii waxaa la garaacay ciidanka sirdoonka Mossad, waxaa la garaacay wasaaradii gaashaaniga, waxaa la garaacay saldhigyada ciidamada cirka ee Israa'iil,
goobahaasoo dhan waxaa la leeyahay nagtaa laga saaray caawa talaabiibna way gubanaysaa dadku qaylo iyo baroora isku dareen godadka dhulka hoostooda waa buuxsameen marka xaalkaasu marka halkaasuu marayaa israa'iil caawa xaaladdu aaday ugu xuntaa la leeyahay iyaguna way hanjabayaan waxay leeyihin waa aarsan doonaa annaguna waxaanu ka samayn doonaa tahraan sida ay ka sameeyeen talaabiib midda kale ee muhiimka ah ee aan rabno inaynu falanqayno waxay tahay iiraan way diidan tahay inuu dhintay aayatullaahiga mas-uul kasta oo iiraan ah oo waraysi bixiyey wuxuu leeyahay aayatullaahiga iyo madaxweynuhu way nabad qabaan nimankan ujeeddo kale kale yihiin dagaal nafsaani ay wadaan oo dadka inay ku qaldaan ay rabaan ra'yul caamka ayuu leeyahay marka dhanka kale Trump Netanyahu kulligood iyaguna waxay leeyihiin aayatullaahiga iyo madax sare waxaanu aaminsanahay inay dhinteen ay leeyihiin marka hawsha iyaduna muhiim qodobka kale ee muhiimka ah ee ku jira wararka ugu waaweyn ee dhacay waxa waaye ciidamada Mareykanka oo markii ugu horeysay qiray inay gantaalo isticmaalayaan Tomahawk waxa la yiraahdaa gantaalaha halista badan ee Mareykanku uu haysto waxaa lagu garaacayaa goobaha difaaca cirka Iiraan ay yaalaan taasoo la leeyahay diyaaradihii awood badan way u yeelan waayeen inay hawada Iiraan xakameeyaan oo ay ku guuleystaan dhowr boqol oo diyaaradood ayaa hawada Iiraan meeraysanaysa foodana waa gelin laayihiin la leeyahay inkastoo duqeymaha ay ka sameynayaan meelo ka baxsan hawada Iiraan marka gantaalahan Tomahawk waxa soo ridaya maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ayaa soo ridaya waxayna ku beegsanayaan meelaha ay yaalaan si difaaca cirka loo naafeeyo oo marka diyaaraduhu ay awood u yeeshaan inay hawada Iiraan qabsadaan marka wararkaas waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee muhiimka ahaa dhanka kalena Yurub waxay leedahay anaga kuma jirno marka laga reebo Britain oo tiri anaga Iiraan dagaalkeeda kuma jirno dagaalna kuma qaadayno laakiin waxaynu ka qayb galaynaa difaaca saaxiibadeen marka Israa'iil iyo Qatar iyo meelaha ayay difaaci doonaan hore ayay Britain u geysay diyaaradeeda dagaalka Qatar iyo meelaha si ay markaa u difaacaan telefoonkana way isku hadleen ra'iisul wasaaraha Britain iyo amiirka Qatar madaxdii khaliijka oo dhan telefoonka ku waasheen mid walba midka kale uu wacaya sidee wax ku gaareen xaaladdu sidee tahay marka jawigu waa kacsan yahay wararkaas ayaan isugu soo dubariday haddii Allah idmo wixii kale soo kordha waan idin la socodsiin doonaa inta aan mar kale kulmayno ku xirnaada barnaamijyadeena xaqaa'iqa ku salaysan oo aanu mar walba ka soo tabino warbaahintu waxa ay qorayaan inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo